الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الله سبحانه وتعالى noogu sheegay kitaabkiisa munazalka oo muxkamka ah inay mamnuuc tahay oo xaaraam tahay oo ninka islaamka ka mamnuuc tahay sawjadiisa xaaidada inuu jameeco, iyo inay ayadu isu makanido oo isu ogolaataa inay mamnuuc tahay jamaaca awadii. waxaan soo haynay mawduucii ahaa dimaa amase dhiigaga dumarka ka yimaada oo u qaybsama dhiigga xaydka, nifaaska oo dhiigga dhalmada ah iyo dhiigga istixaadada la yidhaah. waxaan ku soo guda jirnay axkaamtii xaydka wax ka mida inaan daraasayno iyo waxyaalaha xaydkasta oo inantu markay ku jirto ka mamnuuca ah. waxaan halkaan kasii gelaynaa oo aan kasii wadaynaa arrimihii ka mamnuucaay wax ka mid ah. waxaa ka mamnuuca inanta muslimadda oo xaa'idada in la jameeco. aayadda qur-aankaan hadda akrinay oon horeyna u akrinay ayaa waxay ku caddahay haween xaa'idaha in la jameeco inay mamnuuc tahay. muraadka maxiidada looga muraadayaa waxa weeye zamanka xaydka uu inanta hayo iyo makaanka xaydku ka soconayo farjiga ah ayaa ka mamnuuca ninka muslimkaa inuu sawjada jameeco. zamanka uu xaydku hayo in la jameeco waa ka mamnuuc. maxalka dhiiggu ka soconayo oo farjiga ahna in haweenta looga tagaa waa ka mamnuuc. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi xadiid saxiixa ku sugan oo saxiixa muslim weeyaane: isnacuu kulla shayin ila nikaax, sanceeya shay walba ilaa nikaaxa mooyaane, ayuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. macnuhu waxa weeye jameeca mooyaane inta kala sameeya, maxaa yeelay jameeca waa mamnuuc. muslimiintu waxay ku kulmeen haween xaa'idaha in farjiga laga jameecaa inay xaaraam tahay. xalaal uma ahan axadkii allah iyo maalinta aakhirada rumeeyey munkarka asaga inuu gacmaha la galo oo kitaabka alleh iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ay manciyeen. muslimiintuna ay ku kulmeen arrinkaas inuu yahay arrin aan la ogolayn. axadkii arrinkaa lugaha la gala oo sameeya inuu haween xaa'idaa jameeco iyo haweentii ayadu ogolaata waa axad allah iyo rasuulkiisa la dhinactamo oo la dagaalamay dariiqii muslimiintu mareen dariiq aan ahaynna maray. muslimiintu waxay isla ogolaadeen axadkii haween xaa'idaa inuu jameeco xallisha in la xukumayo kufrigiisa. sidaasna imaamu nawowi ayaa ku soo naqliyey kitaabkiisa majmuuca sharxulmuhadab. allah subxaanahu wa tacaala mahad ayaa u sugan wuxuu u baneeyey dadka muslimiinta ah inay shahwadooda ku jebiyaan wixii jameec ka sokeeya. oo ninka muslimka iyo sawjada muslimadda oo isqaba waa issumi karaan, way wada jiibsan karaan, qof walbaa qofka kale wuu ku istimtaaci karaa farjiga mooye jirka intiisa kale. wixii istimtaac hore loogu ogolaa waa loo ogol yahay. waxayna culimmadu aad u jeclaadeen sida adilada gabal laga garanayo in inantu ay mara hoos ka xirato oo ay farjigeeda qarido ee markaa ka gadaal ninka oo ku istimtaaco. waayo caaisha waxay tidhi nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam ya'murunii fa agtasilu fa yubaashirinii wa ana xaa'id. wuxuu amri jiray inaan dhar xirto, markaas ka gadaal ayuu jirkayga la baashiri jiray anigoo xaa'ida ah. dharka waxay ka xihanaysaa hoos iyo maxalka farjiga ku beegan, jirka intiisa kalena way bannaan tahay. marka sidaas ayaa la ogolaa ayay leedahay caaisha radiallahu canha. marka rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala, sharcigana ha la ilaaliyo, waxa aan diintu ogolayn oo dhanna ha laga tanasulo si liibaan loo gaaro.
haddaba waxaa mamnuuca gabar muslimada oo xaa-ida in jamiic loogu tago waa arrin xaaraam ah oo aan la ogolaan marnaba lana ogolaan doonin. ninkii arrinkaas sameeyaana alle agtiisa cadaab weyn iyo ciriiri badan ayuu ku leeyahay. waxaa kaloo xaaraam ah inanta xaa-idada xukunka kale uu yahay in la furo. sawjka waxaa ka xaaraam ah inuu haweenta xaa-idadaa dalaago xaaladda ay xayd ka qabto, waayo rabbi wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha annabiyu idaa dallaqtum annisaa fadalliquuhunna liciddatihinna. war nabigan oo kale ou dumarka haddaad dalaaqaysaan waxaad ku dalaaqdaan ciddadooda. macnaha waxaa loola jeedaa ciddadii macluumkaay mar ay qaabilaysa fura, oo muraadka laga wadaa waxa weeye haweenta yaan la dalaaqin ayadoo uur le mooyaane ama ayadoo dhiig ka daahir noqotay oo aan daahirkaa lagu jameecin. labadaas waqti mooyee waqti kale yaan la furin inay daahir tahay oo ay dhiig ka daahir noqotay oo aan lagu jameecin, ama ma ahana ay ilmo caloosha ku sido. labadaas yood ayaa lagu furin, labadaas waqti ayaa la furin. si kale in la sameeya lama ogola. haweenta xaa-idada dalaaqeedu xaaraam weeye, waxaana noo caddeeyey dalaa-isha faraha badan ee soo aroortay. aayadda aan soo qaadanay ayaa laga gartay. bukhaari iyo muslimna waxaa ku sugan cabdullaahi bin cumar inuu dalaaqay sawjadiisii ayadoo xaa-ida ah. cumar ninka la yidhaha arrinkaa wuxuu u sheegay nabiga sala allahu calayhi wasalam. rasuulku waa ka carooday sala allahu calayhi wasalam, waxauna rasuulku yidhi far oo u sheeg ha ceshaday sawjadiisa. lama ogola haween xaa-ida ah in la dalaaqo markay daahir noqoto ka gadaal hadduu rabo ha haysto, hadduusan rabinna ha iska dalaaqo ayadoo daahir ah uusan duhriga asagaa ku jameecin ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam. taasu waa ciddadii rabbi amray dumarka in lagu dalaaqo. macnahaas aan akhrinay xadiid tusinaya ayaa ku sugan bukhaari iyo muslim. ninku hadduu sawjadiisa iyadoo xaa-idaa dalaaqo waa aatim, waana ku dembaabayaa. waxaa dushiisa ahaaday inuu rabbigii u toobo keeno. waxaa kaloo laga doonayaa sawjada inuu soo ceshado ee uu ceshado yacni ceshi wanaagsan. markaa ka gadaalna uu dalaaqo hadduusan haysanin dalaaq waafaqsan sharciga oo amarka alleh iyo kan rasuulka waafaqsan. waa inuu yacni markuu ceshado ka gadaal u haysto ilaa ay ka daahir noqoto xaydkaa. markaa ka gadaal ay xayd kala haysho, xaydkaas kalena ay ka daahir noqoto. hadduu doono ha haysto, hadduu doonana ha dalaaqo intuusan ku jameecin duhriga labaad oy guda gashay. sidaas ayaa la doonayaa. war rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala, xaqana si dhaba ha loo ilaaliyo. arrinka noocaasa waa mamnuuc ee yaan la fulinin. haddaba ninka xaaraan bay ka tahay sawjadiisa ayadoo xaa-idaa inuu dalaaqo. hadduu dalaaqa ha ceshado, markuu ceshado ka gadaal dhiiggaa markay ka daahir noqoto oo dhiig kale ku dhacay ka daahir noqoto isaga oon taabanin oo aan jameec ugu tegin ayaa la doonayaa inuu furo. halkaa waxaa laga istisnoonayaa masaa'il dhowr ah. 3 masalo weeyaan oo haweenta ay bannaantay ayaa jirta ayadoo xayd qabta in la furo. masalada koowaad waxa weeye hadduu ninku haweenta dalaaqo isagoon la qaali noqon oo aan jirkeeda taaban oo aan jameec ugu tegin, dhibaata kuma sugna dalaaqa waqtigaas. haweenta oo xaa-idaa in la dalaaqo waqtigaa wax dhibaato la yidhaah kuma sugna, maxaa yeelay cidda dusheeda ma ahaanayso. wax ciddaa oo dusheeda ahaanaysa ayaan la arkin. fadalliquuhunna liciddatihinna markuu rabbi leeyahay waa markay haweentii ciddo tirsanayso. marka ninkii isagoon haweenta jameec ugu tegin oon asaga iyo iyadu istaabanin, haddii marka loo mahriyo ka gadaal oo furayo inuu furo ayaa u bannaan ayadoo qabta dhiigga xaydka la yidhaah. masalada labaad waxa weeye haweentu ayadoo uur leh oo dhiigga xaydku ka soconayo in la furo ayaa bannaan, sidaan horaba u soo ogaanay. ilaa waxa weeyaan waxay ku ciddo tirsanaysaa inay ilmaha dejido oo ilmaha ay caloosheeda ka soo baxaan. marka waqtigaa waa la furi karaa haweenta bacdama ay ka ay ilma caloosha ku sido xayd baa qabta masalada saddexaad waxa weeye dalaaqu hadduu yahay ciwad oo haweentu ay dalbatay in la furo xoolana ay bixiso, waxaa u bannaan inuu ninku furo ayadoo xaa-ida ah.
waxaana u daliila inanta la yidhaahdo yani ninka le Thaabit ibnu Qays inanta ou qabay nabiga ayay u timid sala allahu calayhi wasalam waxayna ku tiri rasuulkii allow anigu ninka kan ku ceebayn maayo akhlaaq xumo iyo diin la-aan laakiin waxaan kahanayaa kufri islaamka dhexdiisa ahaaday sidaa darteed waxaan doonayaa rasuulkii allow inuu ninka kan iska kay furo anigu ma aan doonaye oo lama noolaan karo haddaba inanta uu Thaabit ibnu Qays qabay rasuulka markay u timi sala allahu calayhi wasalam waxay rasuulka u sheegtay inaysan dabeecad xumo iyo diin la-aan ku nacayn ninka kan laakiin akhlaaqdii kufriga lagu hayo akhlaaqdii kufriga markay leedaha waxa weeyaan ayada ayaa waxay nacaysaa dabeecaddii kufriga inay ku dhaqanto oo waxay leedahay ninku waa fiican yahay xagga diinta iyo dabeecaddaba laakiin anigaa kahanaya lamana noolaan karo rabbi haddaanan ka cabsanayna wejiga ayaan candhuuf uga tufin lahaa rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam aturaddiina calayhi xadiiqatuhu beertiisii ma u celinaysaa oo maharka kuu siiyey waxay tidhi waan yeelayaa ee hallay furo lama noolaan kara ninka kana rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam warniyuu Thaabit la yidhaah aqbili lxadiiqa wa dalliqhaa tadliiqa beertaada qaado oo inanta dalaaq hal dalqad ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam rasuulku ma su'aalin inantaas ayada ah inay xaa'ido aheed iyo inay daahir aheed halkaa waxaa laga gartay haweentu hadday nafteeda furanayso oo ay doonayso inay xoola iska bixido sidaa lagu furo calaa ayi xaali kaana waa la furin ama uur ha lahaato ama xayd ha qabto ama yaan intaasoo dhan jirin xadiidka Bukhaari ayaa qoray haddaba taa waxaa laga gartay bacdamaa noloshii ay halis noqotay inantiina ay khuluc doonayso waayo masalada khuluc baa la yidhaah oo inantii iyadu su-aalatay inay xoola iska bixido laga furo ninka kan waa la furi karayaa ayadoo xataa xayd qabta saddexda masaloon sheegnay waxaa bannaan dumarka in la dalaaqo ayagoo xayd qaba laakiin si kale haween xaa'idaa in loo dalaaqa ma bannaana haddii la dalaaqase dalaaqay waa ansixin sida ay culimmadu yidhaahdeen in badan inkastoo ay masaladu tahay masale aad laysugu hayo marka waxaa laga doonaa nimanka muslimiinta ah in aysan ku degdegin furiinka ay haweenka furayaan waqtiga ay xaydka qabaan maantana mushkiladda taagan waxaa ka mid a furiinkuba wuxuu noqday wax iska sahlan waayo dumarka ayay dadku fudayd ku qaateen fudaydna way isaga fureen waxaana batay in haweenka lagu cayaaro rabbigiinka baqa oo furiinka yareeya oo guryihiina wanaajiya oo diinta wanaag ku dhaqa waxaa kaloo bannaan waxa weeye haweenta oo xaa'ido ah in la mahriyaa way bannaan tahay wax daliila oo diidayaana ma jiraan bacdamaa aan daliil diidaya la arkin waa bannaan tahay haweenta oo xaa'ido ah in ninkeeda ninka la siinaya lagu mahriyo welibana loo gurigeeyo laakiin ma bannaano inuu jameeco haddii laga aamin yahay jameeceeduusan dhibaato la imaanayn waa loo gurigeyn karaa laakiin haddii uu jameec dhacayo laga baqanayo muskula inay timaado inaan loo gurigeyn ayaa wanaagsan laakiin mas'alada asalkeedu waa bannaan yahay oo inanta waa la mahrin karaa ayadoo dhiigga xaydka qabta waana la gurigeyn karaa laakiin waxaa ninka waajibku ah inuusan jameec ugu tegin ayadana waxaa laasimku ah inaysan ninka isu ogolaan bacdamaa ay xayd qabto sharcigu sidaa ayuuna amrayaa marka nusuusta ha la ilaaliyo rabbina ha laga boqo sideed ahaanna dhiigga xaydka markay inantu qabto waxaa laga doonayaa nimanka muslimiinta ah inay aada u dulqaataan waayo islaanta marka dhiigga xaydku ka soconayo waxaa aad u yaraanaya dulqaadkeeda waxa isbedelaya camalkeeda waxa isbedelaya dabcigeeda iyo akhlaaqdeedu idilba waxaana aad iyo aad u kacaya dhiiggeeda in lagu qayliyo in la dhibo in hadallo xun lagu yidhaahdo ma habboona welidaa sidaa darteed muslimiintu waxay yidhaahdeen dumarku way jiran yihiin maalinta ay qaan gaaraan laga bilaabo wixii ka dambeeya waayo mar way jiran tahay oo dhiigga xaydka ayay qabtaa mar way jiran tahay oo ilmo ayay walla codatoy caloosha ku wadaa mar way jiran tahay oo ilmihii ayay nuujinaysaa oo dhibaya oo ku qaylinaya mar way jiran tahay oo jiko ayay ku jirtaa oo dab ayay ku gubanaysaa haddaba sidaa darteed dumarku mas-uuliyad badan oo suuqyada looga baahan yahay saas ayaa looga dejiyo ma xamili karaan marka nimanka waxaa la doonayaa inay dulqaataan ogaadaana inay imtixaanan yihiin haweenku
waxaana marka aad loo doonayaa inanta muslimadaahuna ayaduna inay isdejiyo oo markay aragto dabcigeedu inuu bedelan yahay amay kulushahay ay isku daydo inay waxyaalo wanaagsan ku dhaqaaqdo amay digriga alla badiso si rabbi u ilaaliyo subxaanahu wa tacaala. xukunka kale wuxuu yahay oo ka ratimaya xaydka, haweenta waxyaalaha ay ku ciddo tirsataa waa xaydka. macnaha ciddada haweenta ciddo tirsigeeda waxaa loo ictibaariyaa xaydka, oo macnuhu waxa weeye ninku hadduu dalaaqo sawjadiisa markuu jameeca ka gadaal oo uu la qaali noqdo waxaa inanta dusheeda ku waajibaya 3 xayd inay ka mayrato oo kaamil ah hadday ka mid tahay dumarka xaydka yacni xaydka leh oysan ilma caloosha ku sidin. waayo rabbi wuxuu yidhi waalmudallaqaatu yatarabasna bianfusihinna 3 quruun. haweenkii la dalaaqay waxay sugayaan oy nufuustooda ka ilaalinayaan guurka iyo wax kale 3 xayd ilaa ay ka daahir noqonayaan. hadday uur leedahana ciddadeedu waa inay ilmaha dhasho, wa uulaatul axmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna weeye. ama ha laga dhinto ama ha la furo, haween uur leh ayadoon ilmaha dhalin ciddadeedu ma dhammaanayso. amaa midda ayadu aan uurka lahayn ee xayd u saaxiiba haddii la furo waxay ciddadeedu ku dhammaanaysaa 3 jeer inay dhiig ka mayrato. waa uu ku dhacayaa, way ka daahir noqotay, mar kaleu ku dhacay, way ka daahir noqotay, mar saddexaad buu ku dhacay, way ka daahir noqotay, markaas ayay ciddadii ugu dhammaato weeye macnuhu. waa markay tahay haweenta aan laga dhiman ee la furay. ama midda laga dhintay oo ilma caloosha ku wadin 4 bilood iyo 10 habeen ayay ku ciddo tirsanaysaa sida adiladu caddeeyeen. dumarka ayagu aan xaydka lahayn sida gabdhaha yaryar oo aan weliba xayd ku bilaaban, amase sida dumarka ka quusta xaydka oo uga quustay dhallin oo gaboobay ama camaliyo lagu sameeyo riximka laga soo jirid gooyey oo dhibaatadaasu ku dhacday, ciddadoodu waa 3 bilood oo rabbi wuxuu yidhi wallaa'i ya'isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum fa ciddatuhunna 3 ashhurin wallaa'i lam yaxid. wuxuu allah yidhi kuwa xaydka ka quustay haweenkiina ka mid a ama laga shakiyaba inay xaylaan oon lagu haynin ciddadoodu waa 3 bilood iyo dumarka aan xaylinba. waayo waxaa jirta dumar aan dhiiggiiba ka imaanin oo dhiiggii ka go'ay ama gabow ayuu uga go'ay ama dhallinyaranimo weli kama imaanin ama cudurba uga go'o camaliya lagu sameeyey ama sideedoo dhanba laguma hayo. waxaa inantaasu ku ciddo tirsanaysaa marka la furo 3 bilood. sidaas ayuu rabbi caddeeyey subxaanahu wa tacaala. haweenta haddii dalaaq ku dhaco marka la caqada ka gadaal oo la mahriyo welina aan la jameecin lalama qaali noqonin, xayd iyo wax kale midna ku ciddo tirsan maydo. oo rabbi qur-aanka wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum almu'minaati uma dallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhinna min ciddatin tactaduunaha. war dadka allah iyo aayaadkiisa iyo nebigaba rumeeyayow haddaad guursataan gabdhaha mu'minaadka oo markaa ka gadaal dalaaqdaan adinkoon jameecin oo aan la kulmin, haweenkaa dushooda idinkuguma sugna inay idinka idiin ciddo tirsadaan oo ciddo laguma lahan. wax ciddo la yidhaah laguma lahan dumarkaas ayuu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala. xukunka kale xaydka ku sugana waxa weeye in la ogaado inanta riximkeedu inuu beri ka yahay waxa la yidhaha uurka oyse ilma caloosha ku sidin. waayo haweenta haddii la furo ama laga dhintaba waxaa la doonayaa in la ogaado inaysan ilma caloosha ku sidin. sidaa darteed hadduu qof nin dhinto ee haweentiisa uu ka dhinto haweentuna ay aysan ilma caloosha ku sidin, waxaa lagu garan karayaa in ay dhowr jeer xaysho. misaalan 4 bilood iyo 10 habeen ay joogto waa haddii laga dhintay. maxaa yeelay hadday ilma caloosha ku sido ilmuhu dhaxalkay wax ku yeelano waxyaalo badan baa meesha ka ratimaya. sidaa darteed waa in la hubsadaa inaan inanta caloosheeda ilma ku jirin. waxyaalaha lagu ogaan karana waxaa ka mid ah haddii laga dhintay 4 bilood iyo 10 habeen inay joogtoon wax ku soo bixin. haddii la furana 3 jeer oo isku xigta inay xayshay oo la ogaaday inaan wax ilma la yidhaah soo bixin. arrinkaas ayaa la doonayaa in la kontaroolo. waxa kana waxaa la doonayaa in la ilaaliyo oo si dhaba loogu dhaqmo. xaydku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha waajibka farducaynka ku ah gabdhaha muslimaadka inay bartaan.
haween alla haweentii aan garanayn hadday nin leedahay ninkeeda waxaa waajib ku ah inuu baro ama dad bara uu u keeno midaan weli nin yeelanna dadka ka mas-uulka ayay waajib ku tahay inay baraan waana inay dalabtaa inantu siday mawduuca kan ku ogaato inay ka xishootoy tiraa ma baran karo waxa kanna ma dhegaysan karaan uma banaana maxaa yeelay waa mawduuc la ogyahay dumarku inay qabaan waana wax rabbi ugu talagalay xigmada alle ayaana keentay uma banaana gabdhaha muslimaadka inay indhaha ka laabtaan siday dhiigaga ku baran lahaayeen waayo caaisha waxay tidhi rabbi haw naxariiso naagaha reer ansaareed haweenka ayagaa ugu fiican waayo waxay sameeyaan bay tidhi yacnii kama reebo waxaa la yidhaha sariirta iyo xishoodka inay wax walbo wanaagsan ogaadaan ma ka reebin sariirtu weligood ayay tidhi sidaas marka dumarkaas allaha u naxariisto allaha barakeeyo allaha wanaajiyo sidaas ayay tidhi caaisha radia allahu canha marka gabadha muslimadda ee sharafta iyo qiimaha leh waxaa lagu yaqaanaa waxyaalaha waajibka ku ah ayadu inay barato dumarka waxaad arkaysaa maanta jira in badan oo ka mid ah ilaa in alla u naxariistay maahane masaajidka kan indhaha way ka laabtaan mana bartaan mana ogaan rabaan waxyaala sharcigu ka xarimana way ku tillaabsanayaan oo diintu ogolayn war haddaba ilaahay ka cabsada oo baldadaalo diinta ilaaliya xukunka kale halka ka ratimayaa wuxuu yahay wujuubul qusl qubays inuu waajibayo haweenta xaa'idadaa dusheeda waxaa ku waajibaya haddii dhiiggii ka go-o inay mayrato oy badankeedoo dhan biyo ku camimto waxaana u daliil ah nabiga sala allahu calayh wasalam hadalkii uu ku yidhi faadima binti abi xubays axaadiida xaydka ku soo aroortay markaad akhrisid kulligeed oo idil ilaa wax yar mooyaane dumar baa warinaya oo nabiga waraysanaya oo u imaanaya oo weliba gabalkood ay nabiga la niqaashayaan sala allahu calayh wasalam oy masaajidka gabal ku soo celcelinayaan arrin noocaasa ayaa jirta sidaa darteed rabbigiinka baqda oo barta dhiigga xaydka sida laga yeelo faadima nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam faidaa aqbalat ilxayda fadaci salaa waidaa adbarat fakhtasilii wasalli xaydku markuu ku soo qaabilow kugu bilowdo ka tag salaada marka uu kaa dhammaadana ina yahay mayro oo salaada rabbi duko xadiidka asagaa bukhaari baa soo saaray waajib midka ugu yaraanta badan oo laga rabo haweentu inay ku mayrato waa inay jidhkeeda ku camimto biyahoo idil xataa tinta hoosteeda waana inay si wanaagsan jidhka biyaha u kala gaarsiido sida loo mayrto waxaa ugu wanaag badan asmaa binta shakal inanta la yidhaah habkay nabiga u weydiidow ugu jawaabay sala allahu calayh wasalam rasuulku waxau ku yidhi adinka midiin ha qaadato biyo adinka midiin ha qaadato biyo ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam iyo geedka gob la yidhaah ama saabuun ha ku dahaaro qaadato dahaarada ha wanaajido oo si fiican ha isu nadiifido macnaha si wanaagsan horta kolka hore ha u istanjooto istajadeeda ha u wanaajido uma tusabu calaa ra'siha markaa ka gadaal madaxa biyaha ha ku shubto fadadluku dalkan shadiida aad ha u marmariso marmarin daran xataa tabluqa shu'uuna ra'siha madaxeeda jiriddiisa ilaa ay ka gaarsiinaysa biyaha markaa ka gadaal biyaha ku sii shubto madaxa waxaana la doonayaa inantu inay qaadato nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam firsatan mumasaka qidca yar oo suuf ah ama maro ah ee la carfiyey waana inay ku nadiifidaan maxalka dhiiggu ka yimid asma waxay ku tiri rasuulka inta warka fahmi weyday seen ugu nadiifiyaa way ku celcelisay ma aysan dhihin masaladan waa ka xishoonaysaa caaisho meesha fadhiday ayaa waxay tidhi tatabbaciina athara dami dhiigga raadkiisa waa meeshuu ka soo baxay ee uu soo maray ayaa wax carfaya lagu dhaqayaa sidaas ayay ku tiro caaisha u sii caddayday xadiidka muslim baa soo saaray asmaa binti shakal bal u fiirso habka ay nabiga u waraysatay siduu nabigu ugu sharxay habkau nabiga ay u weydiisay rasuulkii ayay hor timid way hor taagan tahay waxaa la jooga caaisho markaabay mas'aladii si bayaana u weydiiday markaabay ku celcelisay markaabuu ku celceliyey kolkaabay caaisho sii bayaanisay ilaa caaisha masalada garanaysay halkaa waxaad ka ogaatay dumarka in laga doonayo masalada tan inay bartaan waajib kuma aha haweenta inay tinteeda furfurto hadday suuragal tahay biyuhu inay tinta jiriddeeda gaaraan waxaana u daliila xadiidka ku sugan saxiixu muslim
أم سلمة رضي الله عنها وحيتي رسولك أيام ويديي صلى الله عليه وسلم وأنا كئي إني امرأة أشد شعر راسي أنا وهويني بان أهي أدبان أحي الحراء تنت إذا قوان أكيا أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية للحيدة والجنابة تنت إذا ما أفرفرها مركان جنابة كم يرانيو روايات كلا waxay tiri markaan xaydka iyo janaabada ka mayranayo tintayda ma furfura nabiga Allah rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ha furfurin إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حطيات وحاكو فيلا إنها مرحاقة 3 جربية والصوقة على كشبتك وآد كججبسك ثم تفيدين عليك الماء فتديرين ومركا كجل البيك الاسكسي شبتك وسيراس آيات كب ظاهر إيا النظيف نغونيسا رسولك الله سيدة أيوكيري صلى الله عليه وسلم إنك مسلمات وحا الله أقراري هذي صورة قلتها إني بيو تنت جريد بينا الجاران إني سنتين تفرفرين لكن وحا أمر اللي قد بحيه إني سوى نايسا أمر إذا يكون ججبسه ويهدي ليرا إن أنت تنت هفرفرته وحا لقيا با إني دبدا كلاكولانتو وإن أنت رير ليراي ويمرور البقوة يسوبهاتو إيا وحلا ميدوا هذا ربي إنك عبصدا ودينت إلهية haweentu haday dhiiga xaydka ka daahir noqoto salaada duhurka oo joogta ama casriga waxa ku waajib ah inay u degdegto qubayska oo markay soo mayrata ka galaal ay salaadii degdeg u dukato dumarka qaarkood hadii dhiigu ka gooxay yani salaada duhur bartankeeda ama casriga oo kale ilaa waqtiga dambe laga gaarayo ma mayrtaan mana u diyaar garoobaan kama gaaro ay xujo ka dhigtaan rabbigiinka cabsada oo ka fiirsada waxa kan salaada waqtigeedii oo la joogo dhiigii hadduu kaa go'o waa inaad mayrataa waa inaad yani isagaajidaa waana inaad dukataa hadday inantii tahay mid mariido ah oo aan mayran karin oo dhiiggii ka go'ay oo biyuhu dhibayaan waa ay booraysanaysaa bedelkii qubayska markay booraysata ka galaalna salaada ayay dukanaysaa waayo diinta xaraj iyo colays laysagama dhigin ee dadku ayugaan doonaynin marka rabbigiinka baqda oo wanaaga ilaaliya halkaas waxaan uga gudubnay ahkaamtii xaydka waxaan jecelahay intaanan ka sii gudbin inaan idiin sheego nuqaad dhowra oo dadku ku kadsoon yihiin haweenta xaaidada waxaa u bannaan inay cidiyaheeda jarato inay tinteeda shanlaysato inay mayrato intay dhiigga xaydka qabto weeye waayo dad badan baa waxay qabaan haweenta xaaidada inaan loo ogolayn inay tinta iska xiirto inay cidiyaha jarato oo waxaasoo dhan u arkaya wax mamnuuca oo aan suuro gelin marka rabbigii ka baqda subxaanahu wa tacaala waa loo ogoliyay yani tinta inay shanlaydo oo waxay leeyihiin yani tinta ma loo ogolaa hadday shanlaydo xabadbaa ka go-ayso dhib baa imaanaya sheekadaa waa sheeko aan wax ka jirin cidiyaha inay jarataan la ogol yahay cilaan bay saara kartaa adilo ayaan jirin diidaysa bukhaari ayaa qoraya arrinkaas inuu bannaan yahay muslimiintiina sidaas ayay oran jireen weligoodna aaminsanaayeen waxaa kaloo u bannaan haweenta dharka yani dhar xaydka u gooniya inay xirato waayo inanta la yidhaha Umu Salama rasuulka iyadoo la hurdaysaa dhiiggu ku dhacay waa ay kacday dharkii bay soo xiratay lagu yiqiin maxayd baa kugu dhacay ayuu yidhi mashkuura kuma sugna ee ila soo seexo waxaa kaloo haweenta xaaidada la garanayaa jirkeedoo dhan inuu daahir yahay dhididkeedu inuu daahir yahay dhiigga ka soconaya bisbaa nijaasa iyo meeshii uu gaaro amaa jirkeeda iyo aratirkeeda iyo dhididkeeda iyo candhuufteeda iyo xibnaheedoo idil waa daahir haddaan nijaaso kale aysan gaarin sheekada ay Soomaalidu yiraahdeen naag xaayda ayay ku soo dhawaanina waa sheeko xaaraana oo been oo wax ka jirin rasuulka go'ay la huwan jireen way la jiifan jireen sidaas ay arrintiisu ahaan jirtay sallallahu alayhi wasallam aala shaydaanka laga dhaxlay oo meel daran laga keeno weeye haween xaayda ayay ku soo dhawaanin midda kale Aisha waxay leedahay rasuulka inta caanaha caro oo dhinac anagu dhamayso meesha aan u dhiibi jiray markaan caro ka galaal meeshii afkayga aan ka qaado dhareerkaygu ku yiilow ka cabi jiray bay leedahay Aisha radiyallahu anha adilla saxiixa ku soo aroortay marka maxaad leedahay arrinka qofka maxay la tahay Aisha rasuulku waxa uu dirtay masaajidka qadiifada inay uga soo qaado xayd baan gabaabay tiri rasuulku wuxuu ku yiri xaydku gacmahaaga kuma yaal
yaallo sala allahu calayh wasalam. caaisha radiallahu canha ayadoo xayd qabtay rasuulka u shanlayday salawaatu ullahi wasalaamu calayh. madaxa ayuu ii dhiiban jiro waan u shanlaynayay bay leedahay. dusheeda inta ku jiibsado qur-aanka akrinayay, jirkeeda ayaa daahira iyo aratirkeeda. waxay leedahay inanta la yidhaha sawda, anigoo hurdayo xayd qaba marada aan huwanahay ayuu nabigu darafta kale uga dukanaya. xayd hadduu gaarana inta iga qaato marada ayuu xaydka ka soo dhaqayay. yacni rijaasha way ku adagtahay inay xaydka haweenkooda maydhaan, wa maca daalika inay sawja ka dhigtaanna way doonayaan. marka rabbi ka baqda oo wanaagga u diyaargarooba. halkaas waxaan uga gudubna xaydka intaanu rabnay inaan ka sheegno. wixii dambe faahfaahinaa ha sii raadsadeen banaadka muslimaadka. waxaan u soo gudbaynaa dhiigga kale ee loo yaqaan istixaadada iyo axkaamtiisaba. istixaadada waxaa loola jeedaa in haweenta dhiiggeedu daa'imo ee uu ka go'i diida marnaba, ama marna waa go'ayaa marna wuu soconayaa. haddaba dhiiggu hadduusan go'aynin weligii, saxiixulbukhaari waxaa ku sugan nabiga sala allahu calayh wasalam faadima binti abi xubaysh ayaa u timid. waxay ku tiri yaa rasuul allah innii laa atur, anigu ma daahir ka badan haddana wuu ku soo laaban. waa inanta la yidhaha xamna bintu jaxsh rasuulka ayay u timid. waxay ku tiri rasuulkii allow innii ustaxaadu xaydatan kabiiratan shadiida, aniga xayd fara badan, istixaado fara badan baa iga soconaysa, dhiig fara badan. abu daawuud iyo tirmidi baa soo saaray. marka waxaad arkaysaa inuu marna aad u soconayo marna uu dhiiggii inanta marmar go-ayo. labadii jeerba nabiga dumarkii inta u yimideen bay waraysteen, war gabdhahan qiimahooda iyo cajaa'ibtooda iyo diinku dhaqankooda u fiirsada. iyo dumarkeennii muslimaadka ay meeshay marayaan, rasuulkay inta u tagaan bay su-aalanayaan, rasuulkay isoo taagayaan. dumarkaa nabigu wuu la kulmayey, diinta way u soo doonanayeen. xaqiiqadu saas bay ahayd. waa marka wanaag la doonayo. waxyaala aan loo baahnayna waa laga tegey, oo yani waxyaala aan loo baahnayn waa la sameeyey, wixii loo baahnayna waa laga tegey. calaa kulli xaal haweenka mustaxaadada ah axwaashoodu waa saddex. xaaladda ugu horrayda bal haddaba dhegayso, waa in dhiiggii xaydka oo macluum ahay inta maalmood ou hayn jiray intaan istixaadadu ku dhicin ka hor. waxaa mamnuuc ah, waxaa macluum ahaa yani inta uu hayn jiray dhiigga istixaadada macluum bay ahayd, waa inay garanaysay. macnaa waxaa loola jeedaa bil walba intuu hayn jira way taqaanaa intaysa istixaadadu imaan. inantaas waxaa loo celinayaa muddadii xaydka ou hayn jiray oo macluumkaah oo horay u hayn jiray. misaalka arrinkaas waxa weeye, haween baa jirta bil walba 7 beri ama 6 beri oo ugu horaysa ayaa xaydku hayn jiray, kabacdina waa ka go'in jiray. haweentii nuucaaseed istixaadaa ku soo diriiday, dhiiggii waa iska socday. 6dii beri iyo 7dii beri waa la dhaafay. maxaa la samaynayaa? bil walba 6 beri oo ugu horrayda waa xayd, inta ka soo hartana waa istixaada, waa dhiiggii dhabar furanka iyo dilanka iyo shubanka iyo waxa loo yaqiinay. waxaa u daliilay xadiidka faadima binti abi xubaysh. caaisha waxay tidhi, faadima binti abi xubaysh nabigay u timid. waxay ku tihi yaa rasuul allah innii ustaxaad. ma u fiirso, waa gabadha ohan karta, aniga dhiig baa iga soconaya, waa lay shubayaa, falaa adur, mana daahir noqonayo, dhiiggu iga go'i maayo, afa adacu salaada maka tegaya. xataa gabadha ugu khayr badan, gabdha ugu diinta badan leh, waxay kugu odhanaysaa naag istixaadaa ka waran oo dhibaata haysato, ee xataa ma dhicin karta inay tidhaahdo mustaxaadaan ahay oo dhiiggan baa iga soconaya, maxaan qabtaa? ma ohan karto, afkeedu ma karo, ma ohan karta. hadday dad xamalka tegtana kaa horaysa u hadli taqaano, hadday been sheegtata kaa horaysa u hadli taqaano, kaalayo mas'alada caddayso ma samayn karto. xishood wuxuu yahay aan la garanin oo aan sharcigu ogolayn ayay la timid, kii sharcigu ogolayna way ka tagtay. markaasuu nabigu yidhi laa, ka tegi maysa cibaadada, ina daalika cirqun, kaasu waa dhiig ka soconaya xidid buu ka yimid. walaakin daci salaata qadra alayaam allatii kunti taxiidiina fiiha uma iqtasilii wasallim. bil walba qadarkii xaydku ku hayn jiray ka tag salaada, markaa ka gadaal mayro oo salaada duko. ilaa inantatana waxay sheegtay bil walba inta maalmood oo dhiiggu hayn jiray inay taqaano, laakiin dhiigga u istaagi jiray. bil walba intii dhiiggu ku hayn jira xayd qabtaa, inta kalena daahir baata uu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. muslim waxaa ku sugan saxiixiisa ummu xabiiba bintu jaxshin, ayadana sidaas uu kale rasuulku ku yidhi, qadarkii oo xaydku ku hayn jiray nagaaw, dibadeed mayro salaada duko. haweenta mustaxaadada oo arrinkaa garanaysa waxaa dusheeda waajib ku ah qadarkii macluumkaah oo dhiigga xaydku hayn jiray inay ka fadhiisato cibaadada. qadarkii markuu dhammaado waa inay mayrataa, waa inay dukataa, dhiigga soconayana waa inaysan u aaba yeelin. taasu waa xaaladda koowaad. xaaladda labaad, haweenta xayd macluuma horay uma lahayn qabla istixaada, oo macnaha maalintii ugu horraysa dhiiggu ku bilowda oo la istaagi diiday, dhiiggii waa iska soconayaa, laakiin tamyiis bay heshay. waxay tihi yani 10kii beri oo ugu horraysa dhiiggu waa madooba, ama wau adkaa ama waa karayay.
axkaamtii xaydkaa lagu dureerinaya intaas. Inta ka soo hartana waa mustaxaaba. Mitaalku waxa weeye gabar yar oo muslimada ayaa jirtay. Mitaalan markii ugu horreeyay dhiigga xaydka ay aragtay waa daa'imay, waa iska socday. waxayse tiri inantii war 10kii beri oo ugu horreeyay bisha dhiiggu madow uu ahaa, inta kale 20ka ka dambaysana gaduud buu ahaa. ama 10ka beri oo ugu horreysa dhiiggu waa adkaa, inta ka dambaysana waa jilicsanaa. ama 10ka beri oo ugu horreysa dhiiggu waa karayay, xaydkana kar baa lagu yaqaan, inta kalena karkii xaydka ma lahayn. waxaa la leeyahay haddaba intuu adkaa iyo intuu madoobaa iyo intuu karayay xayd weeye, inta ka saartana waa istixaada. saas ayaa la odhanayaa. maxaa yeelay dhiigga xaydka calaamooyinka lagu yaqaanay ka mid taha arrintaas. waxaa u daliila nabiga hadalkiisii sala allahu alay wasalam, faadima binti abi xubays ay ku yidhi in kaana damu lxaydi fa inahu aswadu yucrab. hadduu dhiiggaagu dhiig xayda yahay, dhiigga xaydka waa madowya, madowgaana lagu yaqaanaa. fa idaa kaana dalik, arrinka haddii la helo fa amsiki cani salaa, salaada ka har. haddii dhiig kala yimaadana fatawada'i wasalli, hadduu dhiiggu midab kala yeesho wayse qaado, qubayso, salaada duko. waa dhiig xididka soconaye. abu daawuud iyo nisaa iyo rijaal kala soo saaray. culummadu xadiidka sanadkiisa way isku qabsadeen, laakiin dadka ahlucilmiga oo dhan asaga un bay ku camal faleen. marka halkaa waxaa ka garata waa inantii dhiigga midabadiisa kala socday. waa inaad ogaataa inan walboo muslimaday dhiigga midabyadiisa waxaa ka mida inuu aad u madow yahay. hadduusan madoobayna waa inuu aad u gaduudan yahay, waa inuu adag yahay. midda kale waa inuu yacni kar leeyaho soo karayo. afartaas calaamo laba ka mid ahaa laga helaa ama mid ka mida dhiigga markuu xayd yahay. madow adag, ama madow iyo kar, ama adayg iyo kar, ama gaduud iyo kar. inuu aad u adag yahana waa jirtaa mar kastaba. taas un baa lagu garan. marka inantaas waxay kala socday midabyadii dhiigga, way kala oqotay, way noo kala sheegtay, waan u celinaynaa. ta saddexaad waxa weeye xaydkeeda macluul maahan oo maalmo hore ma lahaan jirin, mana kala taqaano, waa isaga dhex yaacday. waxay tihi dhiiggii kulli bisha dhan waa wada madoobaa, ama waxay tihi maalina waa madowya, maalina waa gaduudan yahay. wax aan sameeyo ma garanayo, waa isaga kala dhex yaacday. inantaas ayadaa waxay ku camal falaysaa dumarka sida ay u badan yihiin dhaqankooda. 6 beri ama 7 beri ayay bil walba xayd ka dhiganaysaa, inta ka soo hartana waa daahir oo daahirada ku isticmaalaysaa. mithaalka masaladaas waxa weeye haween baa aragtay, markii ugu horraysay dhiig aragto ayay waxay aragtay dhiiggii waa socday. dhiiggii midabyadiisi waa isbedeli diideen, hal midab buu ku socdaa. ama mahane maalina waa madow, maalina waa gaduud. ama mahane waaba isaga dhex yaaco, midabyada ma kala taqaano. midda kale horay dhiiggu uguma dhici jirin oo inta maalmadu hayn jira ma taqaano. see la yeelayaa? xaydkeeda waxaa lagu qadarayaa 6 beri ama 7 beri. waxaa u daliila xadiidkii rasuulka sala allahu calayh wasalam. xamna bintu jaxas ayaa u timid, waxay tihi rasuulka allow innii ustaxaadu xaydatan kabiiratan shadiida. xayl fara badan baa la shubayaa, maxaad arkaysaa? salaada iga macnaysa, soonka iga macnaysa, seen yeelaa? salaada iyo soonka ma uga tegayaa? ancabtu laka alkursi fawri, laki alkursi, suuf baan kuu sifaynaa ee isticmaal oo qudni ku aadi farjiga, fa inahu yudhibu dama, dhiigu ka. waxay tihi dhiigga kanu aktaru min dalik, dhiig suuf lagu celiyo waa ka badan yahay. habkay nabiga ula hadlayo u fiirsada. xaggay banaadkii aadeen muslimaadka ah, rabbi ka baqra bal eega sida hadlaysanantu. waxay tihi kanu mid lagu celin karo suuf ma aha. 29 magac qof waa loo bixi yaqaan, laakiin diinta satarna loo raadi yaqaan. allahu akbar. waxay tihi kanu ma aha sidaa, dhiig la celin kara maaha. waxau yihi haddaba inamaa haada rajlatun min rakadaati shaydaan, waa haraatiyadaalka shaydaanka ka mid a. fataxayadii 6 ayaam aw 7 ayaam, 6 beri ama 7 beri isxaydsii, cilmiga ilaahay isku qadar. ikhtiyaar bay u leedahay 7 iyo 6. dumarku siday ugu badan yihiin hadday 7 tahana way raacaysaa, hadday 6 tahana way raacaysaa. cilmiga ilaahay rabbi subxaana wa tacala ayaa garanaya. 6 beri iyo 7 beri markay dhammaato, uma iqtasiri, mayro. markii aad aragtid inaad nadiif noqotay oo aad mayratay 7 beri iyo 6 beri ay dhammaato, daahir noqoto, isdhaqdana, fasalli 24 aw 23. 23 beri cibaadayso haddii aad 7 beri xaydkaa ka dhigtay. 24 beri cibaadayso haddaad xaydkaaga 6 beri ka dhigtay. hameenadooda iyo maalmahooda wasuumi maale, soonna. arrinkaas waa kuu gudayaa, waana ku kaafinayaa. xadiidka axmed, abu daawuud, tirmidi ayaa saxiix yeelay. waxaa axmed laga soo naqliyay inuu saxiix yahay. bukhaari wuxuu yihi xadiidku waa xasan. culamada gobol baa dhaliil usoo jeeday, laakiin sida biyo kama dhibcaanka xadiidka darajada ugu hoosado imaanaya waa xasan. haween alla haweentii garakari weyday, dhiigga midabkiisii kala oqon weyday, ama kala oqon weyday, muddada hayn jiray garan kari weyday. haweentaas isku wareertay oo dhinacyada isaga darmeen, wax mutaxayiro la yidhaha oo culamo wareerisa ma jirte, daliil caddaan ayay haysataa.
waxa weeyaan bisha kowdeeda hadduu marka hore dhiigu ku bilowday bil walba kowdeeda ilaa 6deeda ama 7deeda xayd baa qabtaa baa la leeyahay inta ka saartana waa daahir xaydku marka hore hadduu ku bilowday 25 bishana bil walba shanta ugu dambayda iyo bisha kale kowdeeda daahir baa taa la leeyahay yani xayd baa qabtaa inta kalena daahir baa taa la leeyahay sidaas ayaa lagu wadaya xaaladda inanta marka arrinka noocaasa waa inay muslimaad ku ogaadaan rabbina waa inay ka baqaan oo diintana u ilaaliyaan haweenta mustaxaadada dad lagu shabahay ayaa jira oo ayada shabaha waxa weeyaan oo kamid ah haween baa waxa ku dhacay sabab waajibinaya dhiig inuu farjigeeda ka socdo ayaa haweentii ku dhacday waa maxay sababtaas waxay ka timid amaliye ayaa riximkeeda lagu sameeyey ama riximkeeda meel ka sokeeda amaliye lagu sameeyey marka waxaa ku dhacay sabab waajibiyey dhiiggii inuu iska soconayo oo uu qubanayo dhiiggiina dhiig xayda ma ahan maxaa la qaban doonaa marka waa haween mustaxaadada shabahda laakiin aan mustaxaado ahayn laba ayaa loo kala qaadayaa labada midda koowaad waxa weeye waxay og tahay inanta tanu inay xaysho inaysan suuragal ahayn bacda camaliyada waa maxay waa la galay waxaa la soo jirid gooyey oo bilkulliye looga soo bixiyey riximkeedii meesha ilmuhu geli jireen oo dhiigga soo dayn jirtay bilkulliye waa laga soo bixiyey idan marka suuragal maan dhiig inuu yimaado haweenta noocaasa axkaamul mustaxaada ku sugnaan maydo dhiiggeeduna dhiiggii mustaxaadada noqon maayo salaada ka tegi mayso soonka ka tegi mayso jamaaceeda lama diidayo dhiiggaa ka mayran mayso salaadii way ku waajibaysaa dhiigga asagaana inay iska dhaqdo laazim ma ahan ilaa markay salaada dukanaysa maaha markay salaada dukanayso waa dhaqaysaa farjiga maro yar ayay ku aadinaysaa si ay intay taagantahay aan dhiiggu u soo daadanin waa ay weyse qaadanaysaa markay weyse qaadatana salaada waa dukanaysaa umana banaana salaad inay u weyse qaadato waktigeedu inuu gala maahana sidaas ayaa laga qaadanaya adiladii hore waa haweenta riximkeeda la soo bixiyo camaliye lagu sameeyey oo meeshii dhiigga oo ka imaan jiraba banaanka la keenay qoyaankii iyo dhiiggiina uu istaagi kari la'yahay haweentaas ayada ah oo sidaa hubsatay dhiiggaa ka da-aya waxaa lagu xambaarayaa ruduubada farjiga oo kale oo dhib ma lahan yacni wax walba waa cibaadaha way u bannaan yihiin markay salaada dukan rabto waa inay dhiig ka dhaqlaan meesha suuf ka aadisaa istaagtaa oo salaada dukataa taas ayaa laga doonayaa midda labaad waxa weeye haweentan camaliya lagu sameeyo waa la qalay dhiig baa iska soconaya mana ay oga in la soo bixiyo riximkeedii warna ma hayso wax ay samaydo way garala aday waxay xaqiijidana ma lahan dhiiggiina waa soconayaa haweenta noocaasa xukmul mustaxaada ayay qabtaa waa mustaxaadoo kale oo macnaha mustaxaadoo kale marka la leeyahay waxaa laga wadaa intii maalmood oo xayd laga dhigana xayd baa lagu qadarayaa inta kalena waxay noqonaysaa mustaxaada oo waxaa loo laabanayaa dumarkan hadda soo marnay arrintooda hadday kala tagaan dhiiggu intuu hayn jiray intii xayd ka ahaan jirta xayd lagu qadarin inta kale istaxaada laga dhigayaa waa haddii aysan ogeyn in riximkeedii banaanka lasoo dhigay oo meeshii ilmuhu geli jireen laga soo bixiyey haddaysan ogeyn sidaa weeye marka qof walba oo ay waxadid ka soconaya sida dadka kaadidu ka soconaysoo kale ama farjigooda maalu ka soconaysoo kale iyo wixii lamida waxay u cibaadaysanayaan sida ayagoon wax dhibaato la yidhaha qabin waayo caaisha waxay tidhi gabdhihii saxaabiyaadkay waxaa ka mid ahayd gabar markay dukanaysa labada lugood dhexdooda weel aan u dhigno baaf ah oo isku taagta oo dhiiggu halkaa ku qabto masaajidkana way tegi jirtay salaadana way dukan jirtay dhib walbo hayay cibaadaday la imaan jireen rasuulka inta u tagaan bay si dhaba ula hadli jireen dhibkaan baan haye maxaanu qabanaayo ohan jireen ayagoo rijaal joogtay ayagoosan joogin labadaba waa weydiin jireen masalada kama aysan gama jirin gabdhaha muslimaadkaa waayo caaishaa tidhi sariirtu kama aysan reebin dumarkii islaamka ahay khaasatan gabdhihii reer ansaareed inay diinta bartaan oy nabiga weydiistaan saasaa laga doonayaa dumarka muslimaadka axkaamta istixaadada waxaanu soo ogaanay dhiiggu markuu xayd yahay iyo markuu istixaado yahay in farqi u dhaxeeyo xaydka axkaamtiisii way noo soo sugnaato hore ayaan u soo ogaanay haweenta mustaxaadadaana axkaamul istixaada ayaa u sugnaanaysa oo macnaha cibaadada waa loo ogol yahay laakiin mustaxaadada inanta ah oo dhiiggu ka soconayo istixaadada waxaa la yidhaha dhiigga dhabar furanka la yidhaha dhiigga ay u yaqaaniin dumarku dilanka oo iska soconaya oo ay leeyihiin ilmaha dilmo wuu soconaya maanta dhan kaasaa lagu tirinayaa amaa haddii dhiiggu yahay dhicis oo haweentii dhiciday oo dhiiggu sidaa u soconayo dhiigga dhalmada oo noo imaan doona ayaa lagu darayaa haweenta marka mustaxaadada ah oo dhiiggeedu iska soconayo haween daahira ayay la mid tahay farqi ma lahan waxay uga bedelan tahay haweenta daahirka masaa'il yar
oo aad u badnayn. Mas'alada koowaad waxa weeye haweenta istixaadada qabta waxaa ku waajibaysa salaad walba inay u weyse qaadato iyadoo loo daliishanayo xadiidkii Faadima bint Abi Hubaysh. rasuulku wuxuu ku yidhi inantaas ayadaa sida Bukhaari ku sugan uma tawadda'i likulli salaad walba oo aad dukanayso u weyse qaado. xadiidkana Bukhaari baa qoraya. macnuhu waxa weeye salaad walba waqtigeeda marka la gaaro yani ka gadaal weyse qaado. salaada ayadoon la gaarin ma weyse qaadan kartid, waqtigeeda marka la gaaro onbad weyse qaadanaysaa. macnaha meesha yaallaa sidaa weeye. qubayska inay la timaado salaad walba markay dukanayso waajib kuma ahan. maxalkay dhaqaysaa, suuf bay ku aadinaysaa, waana ay weyse qaadanaysaa. macnuhu sidaa weeye. waxay kaloo laga doonayaa markay doonayso inay weyse qaadato yay iska weyse qaadani, dhiigga ha dhaqdo, farjiga ha ku aadaysa qirqa ama qidca suuf ah oo dhiigga ka dhuuqda. inanta la yidhaha Xamna bintu Jaxsh buu nabigu u sheegay ancatu laki lkursu, suuf baan kuu sheegayaa dhiiggow kaa celina isticmaal. waxay ku tiri yaa rasuul allah innahu aktaru min dalik, dhiigga kanu dhiig suuf lagu celin karaa ma ahan. hadalkii nabiga ku celinaysa u fiirso. wuxuu ku yidhi fatakidii thawba, mara yeelo, suuf inta meesha ku aadisid mara sidii dabagelisa aan u xiro, sida matanta oo kale weyn oo adag qaado. waxay ku tiri idhagayso yaa rasuul allah aktaru min dalik, saad sheegaysa dhiiggaana waa ka badanyay, dhiig mare lagu celin kara ma ahan. wuxuu rasuulku ku yidhi fatalajami, waxaad yeeshaa dhowr xabba hoos guntiyeyso dabagelisii wax samayso. wuxuu rasuulka ku tiri ma dhaci karto, dhiiggu wuu soconayaa. marka halkaa waxaad ka garanaysaa inantii in laga doonayo marka ay dukan rabtay dhiigga ka soconayay maxalkii ha dhaqdo, wax dhiigga sii celiyana booska ha ku aadiso hadday suuragal tahay. macnaha la doonaya noocaa weeye. hadduu dhibayo waa iska dhaafaysaa. waxay Faadima bint Abi Hubaysh ku tiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam ku tiri ijtihani masalaada ma ka dheeraada marka ma yabo yiri ijtanibi salaata ayama tahidak, maalmaha xaylaysay salaada ka dheeraw, thumma iktasili mayro wa tawaddi laakiin u weyse qaada likulli salaad. hadalka nabiga sii dhageyso. thumma salli wa in qadara damu ala alhasir, salaada duko dhiiggu waxa ku soo difdifqo raarka dushiisa. sidaas ayuu ku yidhi sallallahu alayhi wasallam. Ahmad ibn Maajah baa qoray. ma meel dambe laga laabtaa la arkaa sidaa lagu yidhi maya, cibaadadii si kasta waa loola imaanayaa. hawlihiina waxaa laga doonayaa inay mawduuca sida Xamna uga daba tagtay, Faadima bintu Abi Hubaysh uga daba tagtay, Saynaba uga daba tagtay uga daba tagaan. nabigay la murmeen la niqaasheen, dhibkaan baa jiree wixii wax lagu xallilay sheeg bay yidhahdeen. wax walba nabigu waa bayaaniyey. sida oo kale Asma bintu Yaziid nabiga way u timid sida loo mayrto dhiigga laysaga dhaqo ayay kala hadlaysay nabiga muddo badan sallallahu alayhi wasallam. macnahaas waa macno caama. midda kale haweenta mustaxaadada ah ninkeeda inuu jameeca way bannaan tahay. sababahaasna waxa weeyaan sida raajixa waa noocaan. waayo alla wuxuu yidhi factazilu nisaa fi lmaxiid, markay dhiigga xaydka qabaan baa la yidhi bes, marka kale waa la jamci karayaa. salaada haddii loo ogolaado yidhi Cabdullaahi ibnu Cabbaas, salaadaa wax walba ka weyn oo jameeciina waa la ogolyahay. midda kale dhiigga xaydka iyo dhiigga istixaadada farqi baa u dhexeeya. dhiigga xaydka waa dam ka yimaada min aqsaa rixim ilmara, riximka haweenta meesha ugu durugsan ayuu ka yimaadaa. haddii haweenta lagu jameeco way ku jiranaysaa barabera imanaya, wayna ku xirmaysaa bakteriya waxba ka dhalanaya. amaa dhiigga istixaadada oo cudurka ku yimid wuxuu ka yimaadaa min adnaa rixim ilmara, riximka haweenta meesha ugu dhow. waxaana la yidhaha xidid magaciisa la yidhaha caadil ayaa furmay. dhibkau doonaa ha ku furma, xididkaasaa furmay. marka dhiiggaasu xirmi maayo, dhib ma ka imaanayo, borobaleen dhaaxaana ma lahan. amaa inanta dhiigga istixaadada la yidhaha oo dhabar furanka qabta, tabartaa ka dhammaata, dhiiggeedaa yaraada, dhibaato badan baa soo gaarta. dumarka muslimaadkaana in badan buu ku dhacay. waqtigii nabiga waxaa lagu qadaray dumarka uu ku dhacay 10 iyo wax ka badan. 3 gabdhood oo kamida inay isla dhasheenna waa la sheegay. rabbi imtixaankiisa weeyaan. waxaana la tijaabinayaa bal inay dad fiican oo diinta alle ku dadaalayeen iyo in kale. marka haddaba waxaan inan walba oo muslimada oo diintan walaala ku nahay u soo jeedinayaa rabbigeed inay ka cabsato oo dhiigga xaaladiisa barato, iskana ilaalido si alla u caabudi lahayd. marka balmanaadkow diyaargarooda oo daa'imkiina ka baqo xagga si dhawo ilaaliya. in badan ayaanu iswarweydiinay kuna celcelinay inaan dhiigga kan warbixin ka soo dhiibno, laakiin waxaa mashaakilku ka taagan yahay maalinba maalinta ka dambeeya dadkii waa kasii jaahil noqonayaan. mawduuca istixaadada intaas ayaanu uga tagnay. waxaana rajaynayaa in la fahmay qaybihiisu intay ahaayeen, dhibna uusan lahayn, waa fududahay. si fudud ayaa nabigu uga jawaabay sallallahu alayhi wasallam. mawduucaan u soo gudubnay waa nifaaska iyo xukunkiisa. nifaaska waa dhiigga dhalmada. nifaaska waxaa la yidhaha dhiig riximka haweenta uu soo daadiyo bisababi alwilaada, ilmaha sababtooda.
marka ilmuhu dhalanayaan ayuu la yimaadaa ama ka gadaal buu yimaadaa ama ilmaha dhalashadooda maalin 2 maalmood ka hor ayuu yimaadaa dhiigga ilmaha ka soo horeeya maalin ama 2 maalmood oo dhacaankii dhalmadu uu la socdo waxaa lagu tiriyaa inuu yahay dhiigga nifaaska oo aan la duka garaynin laakiin dhacaankii dhalmada lagu yaqiin hadduusan la socon ee uu maalmo ka horreeya dhalmada waxaa lagu tirinayaa xayd sida loo badan yahay culammada gabalna damulfasaad ayay ku tiriyeen sidaas ayaa loo kala qaaday marka dhiigga asaga ah yacni taqdiir la qadaray oo la leeyahay intaas ka yar ma socon karo lama hayo inta ugu yaraanta badan laxda weeye inta ugu badan culammada qaar waxay sheegeen 40 gabal 60 gabal 70 kida sheekadaasay daldaleen laakiin sida rasmiga oo daliil saxiixa oo ku sugan yahay waxay dumarku leeyihiin waxaa waqtigii yani nabigu joogay sallallahu alayhi wasallam aan ka fariisan jirnay salaada markaan xayd istixaado qabno aan qabno dhiigga nifaaska 40 yawma ومسلمة أرنيسا كنا نجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى فريسان جرنا وقتك نبيك الصلاة وقتك عن نفاسك قبل أفرتن بري هدو نافو واستحاضة علماء قبل كنتم بيتري قبل لحدا بيتري قبل تضوات بيرادين وحاصودا حق نارك دليل باقوصة أرواي أفرتن بري وحي كبرا واستحاضة يعني انت ugu yaraanta badan waa laga yaabaa inuu saacad hayo inuu laxda hayo marka ugu horeeyo aanku dhasho ka gabal inuu sinimana waa dhicin kartaa ahkaamta nifaaska ahkaamta xaydka ilamitay sawaan bisawa waa jinjin intii ka xaraan tahay gabadha xaydka qabta ayaa ka xaraan midda dhiigga nifaaska qabta waa islaam labadooda dhinac walbaba allahumma masaa'il rabbi ku kala bedelayeen masaa'ilka ku kala bedelayeen waxa kamida haweentu haday dhasho ayadoo uur leed bay dhashay ayadoo uur la ayaa la furay mitaal way dhashay markay dhashay ciddadeedii way dhamaatay oo sida xaydkoo kale la oran maayo inta dhiigu ka go'ay ciddadiiba ku jirtaa ciddadeedii waxay ku dhamaatay dhalidda ilmaha ay dhashay taas waa mid oo taas waa lagu gartay waa mas'alo ku kala bedelan yihiin masalada kale waxa weeye dhiigga xaydka waa lagu gaangaaraa dhiigga nifaaska gaangaar kuma xasilo maxaa yeelay maba suuro gasho haweentu inay ilma caloosha ku qaado ayadoon dhiig xayd ka imaanba oon dhiigga xaydka waqtigiisa gaarin sidaa darteed qaangaarka inantu wuxuu ku xasilaa dhiigga xaydku inuu yimaado dhiigga xaydkuna dhiigga dhalmada waa ka horeeya ilaa dhiigga dhalmadu in ilma la dhalo u baahan yahay ilma dhaliddana waxaa ka sii horeeya inantu inay xayd iyo qaangaar iyo waxaa gaarto noocaa weeye midda kale dhiigga xaydka haddii uu go'o ee uu inanta ku soo laabto mar kale haddana isla xaydkii baa la odhanayaa mitaala dhiig baa ku dhacay inanta bisha kowdeeda ilaa 3 ayuu hayay 8 beri ka gadaal buu ku soo laabta waa xaydkii baa la leeyahay amaa dhiigga nifaaska mar hadduu go'o ee uu ka dhammaado inanta ogaato inuu ka go'ay hadduu muddo ka gadaal dhiig kala soo laabto waa nifaaskii la odhan maayo oo asaga way u dhammaatay lama odhanayo waa nifaaskii waa dhiiggii nifaaska soo laabtay 40 beri ayaa ugu badan intuu hayo inanta muslimaddaa waxaa waajib ku ah dhiiggu hadduu ka go'o nifaaska ah inay salaada dukato oy soomto hadday awood u leedahay أما أنت بيجاسو هيو وحاك حارانا وح الله وحي كحارانا هوينت حايدرا وحيك غلطة أياك حارانا أفرتن بريكا قلانا بيج ليران نفاس مجرو marka dhiigii waxa uga go'ay maalintii ugu horeysay salaadii waa inay hore ka bilowdaa soonka haddaysan karin ma soomayno ilaa ilmaha dartooda inay u afurtaaba loo ogolaa oo way ka bedelan tahay fattaqullaha mastadactum ayuan alla yidhi subxaanahu wa tacaala rabbi sidaa ayuu leeyahay yani fattaqullaha mastadactum intaad kartaan rabbi ka baqda haddaysan awood ulayn ma samaynayso dhiigga xaydka la yidhaahdo sidiisa ahaan waxuu soo daahiraa mar kastaba yani inanta uga yimaadaa dhib la'aan waa dhiig dabci ahaan loogu talagalay asagu markuu yimaado inay xanuunsato waa laga yaabaa laakiin asalka uu isagu ku imaanaya waa caafimaad amaa dhiigga nifaaska asaga waxa keena waa ilmaha sababtooda waa kala bedelayin marka labadooda noocyadaasay ku kala tegsan yihiin inanta dhiigga xaydka markuu ka yimaado way jirataa isbeddel badan baa ku dhacaya khaasatan dumarka sida silaca iyo saxariirta loo gudo ooy hooyooyinkii dhalay iyo aabbayaalkii dhalay ku cayaareen oo sidii fircoon u isticmaalaan ilaahay waa ka amaalmarin doonaa kuwii wax guda iyo kuwa wax dhalay oo sida xun yeelay dhiigga way ku xanuunsadaan dhib badan baa naga soo gaara salaadooda iyo cibaadadooduna halis bayba ku jirtaa sida meelaha gabal ay culammadu ka sheegeen waxaa kaloo la isku hayaa haweenta haddii dhiiggu ka go'o 40 beri ayadoon gaarin ninkeedu ma ugu tegi karaa jameec mase waa mamnuuc waxaa la sheegay Cuthmaan ibnu Abilcaas inuu yidhi 40 beri ka hor haddii dhiiggu ka go'o haweenta inaan loo tegin ayaa fiican waayo way xanuunsanaysaa
وحنوسنيسا وقوني لكن دين أهم مسألة حرام معها أما أيدي ما حنوسنيسا أيدي بعد بعتيسا موضوع قاروي لكن دين أهم مسألة حرام معها ويوديك جاستينو جوج أيها اللي وحري هذا قانا ويقول ما تأرين دا سيارات لكن دي جنفاسكو أصبوا سهلية أرينكيس أنت أبو الأجيه أنت أو كهين كرم على الله ما الماضي نقول كرتا لكن واحد أقبل بأفرتم بريئة مركو كان مع الوقت ورهنا معه أفرتم بريء جودة أما كيره إلى هذا هرك بالله صون كمان أنت كان سيروا صون كهذا كل ما تقول يسوي ولا جالسوية لكن أنت كان وين الوضع صلاة دي عباداتك واجباتك خلاص الله يمات تاسع اللي قد دونا أنت مسلم هذا وحنا ليس أفرتم جيبه كجرتا ولا هذا ما دكان يسوي ما سوى ما يسوي أيه روح يدا يلي كرتا دي كواسع أنا يو ما حدا ولي أفرتن جيبه كجرتا وين كان غطمر ولا كلا شيء سرح قوة دعان ما ربي كبر سبحانه وتعالى وغريب على الناس وعقوة أنا استمر كدمر كي على عندك في رسالة موضوع عسكر أنت على وجود بي هذا ما بنانت هو أنت مسلم ده إن يديك حيد كداول ليس جعلي استعماشه ولا سجره أما يديك حيد كداول سوجيده أما وحياه ما الله غهرته سيدي الآن مسألة التوحى كجري على الأفر ربنا إني هوانت استعماش الدعوة بيقى حيث كلمة أيوه مسألة أيضا دمركو إن بدن بيدون دونين وحكت جوابي أحمد بن حنبل رحمه الله وأسوأ أئمدي ملايته كاملة كتاب كالإله مغني من قدامه وحو الصغري إن أو أحمد بن حنبل يري إن أنت مسلمات دعوة لوجوجي بيقى والاستعمال كرتا هدي الحقيقة صنو إن دعوة سدب أجيسانين المهدة إيه حاكمات كده waxaan arintaas ku dhicin kartaa bisha ramadaanka oo kale inay istiraado si aan bishu kaaga galabin daawo on dib kaaga dhacay ama xajka ay ku jirto culimadu marka way baneeyeen masalada imaam ahmed daana raggi ka jawaabay ragga ugu waaweyn kamida laba shardi ayay ku xireen shardiga koowaad waxa weeye an la yashar darara calayha wa in ayada dusheeda aysan looga bagan ama aysan ka bagan dhibaato hadday nafsadeeda daawadu dibayso ma banaa inay isticmaasho waayo alla wuxuu yiri wala tulqu biaydiikum ila tahluka nafsadiina halaag iyo dib ha ku ridinina daawadaas ayada ah oo maanta la isticmaalo waxaan aad uga la niqaasnay ragga ay dadka ayagu dhaqaatiirta ah in badan ayagu sameeya ama isticaano dadka siiya waxa la ogyahay dumarka la siiyo daawada dhiigga lagu joojiyo sida ay u badan tahay waliba daawada muddada dambe ay reer galbeedka iyo reer barigu sameeyaan oo ay leeyihiin dhiig baa looga hortagaa waxay gabadha ku keentaa laba arrimood arrinka koowaad muddo yar ka gadaal dhabar furan baa ku dhaca oo dhiiggeeda dhanba banaanka ku qabta waa mid labaad ilmaheeda ayaa dhib soo gaara hormoonka inanta ayaa baaba'a arrintaas waa la soo xaqiijiyay daawooyinka gabal sidaa ma ahan bay leeyihiin haddii la helo bal la raadiyo laakiin ilaahay hadda daawooyin la helay oo dad lagu daweynayay ama dumarka dhiigga uu ku xirmo oo aad ugu xanuunsado la siiyo waxaa la cadeeyay inay dhibkaa la yimaadeen rabbina waxa uu nafsadiina halaag iyo tahluka ha ku ridinina وحكى الله يري سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما نفس الدين هدلننا محايا الله وحو هذا من أبينك إلين حريصة نفتينا دي بهو كينينا إن الله دي بالله أقر ومشاكل لك شغيو بدك وحا للدنيا مركا أيضا اسكع علي ليس دعوة والدعوة استعمال صديق إلى جوجي للدنيا حضي هوين تعصو هوين لا فري أي تاي أو عدة ترسانيسا أنت عدة ترسانيسا ننكا أيضا فري أو مصروف أيو وإن هو أقر هذا إلا إن ديجي وقتجيس دائر هذا وعدة الدب دعوة لما أقر وإن أقوليه إلا سيقدو زرالي كاين ووقتجي ديجي إيو يماد الله برطو وكذب الدعوة استعمال جدتر ظلم يا ماشا كيماني سيدا دبت الله أقر ربي هذا ربك سبحانه وتعالى قبله بعدما يكون حنوصلين خاصة دمرك صوماليا بعدما قبله هذا يريك أي أدو قد جلالين ديكك وهي كد دلالي إلي داوين عنان لكن داوين كي إربحما أي ديبك كان هلا حقيقية داوين الله أنيو إني سندب أكيني كان عافماتك إيه إن أنت هرمون كده إلمها والمجالين كأمس المحبارها مكانك إيه المها سيدا ومكانك أسوق قابليه إنه يسندبوا كيني كريم هذا يدبوا كيني كرتو ويقحانت إن أنت كجرتك الحما يدري كرتو أما يهرمونك كويك الله وترجع بابين كرتو داولا إن لعنا حرام وي منا بنانا داولا اللي وصل جيدا يحيك ولا يسيق كيني ينا هذا إلى لا اللي هرتجي من كيدنا أقبليه علماء بربا أقراتي
calaa kulli xaal ilmaha marka inanta laga joojinayo haddii inantu ay ilmihii ku dhibaatootay in ilmaha loo kala durjiyo culimmada bar baa ogolaatay ayagoo u daliishanaya xadiidka ku sugan saxiixa oy saxaabadu dumarkooda jameeci jireen oo marka biyuhu ka soo baxayaan ay bannaanka ku daadi jireen sayse ilma u qaadin oo marka dhib ka imaanayo taas ayay ogolaadeen amaa ilmihii markii caloosha galaan in lasoo tuuro lama ogola markii ruux ku samaysmo haddii aan ruux ku samaysmin caafimaadka hooyada uu qilqiil galo taasoo mawduuc ay culimmada bar ogol yihiin weeye calaa kullin dadka muslimiinta waxaa laga doonaa rabbi inay ka baqaan waxaana muddada dambe bilaabatay 4 canug ka badan lama kori kari ilmahan iska joojinaya daawa qaadanaya waxaa ka dhacday amaakin ka mid a afrikada iyo yurubta nin baa haween 4 canug u dhashay midna 3 canug waxay ka soo saareen ilmogaleedka oo dhan ilaahay da